baasto aan u malaynaya walaalkay inuu ahaa yani dadku hani munkan goormo dhamaanaya hogaamiyaashu jamaal muha la isqabsan doona yani adduunyada waxa fiican in la wada ahaado optimist waxa fiican in la rajeeyo yani nolosheena qayb ka mid ay noqotay cabsida lagu jirta waaye laana xanuunkeeda yaa maayan soo aragnay shir weyn oo shir Soomaaliyeed oo dib u shirarkii badnaa la qabtay mid ka mid ah ayaa markii la gabagabeeyay inuu wuxuu yiri shirka ku xoogaa ma la qabanaya yani already wuxuu sii sawirtay ilaa meel la tagay inuu la fashilay ashada loo soo noqon doono marka waxaan rabaa caawa hortiina inaan ka cadeeyo ilaahay idankiis isqabqabsiga madaxda u dhamaaday waan ballanay aniga iyo gudoomiyaha baarlamaanka prime minister intaan isku nimidaan baanahay dadka Soomaaliyeed maxaan u sheegaynaa hani mumkin iska sugo miyaan baahnaa mise wax ka duwan waan ballanay in aanan isqabqabsanin oo aanan isku qabqabsanin maamulka dawladda iyo xukunka kala jiidashadiisa ee aan dawladnimada iyo dawlad dhisidda hal dhinac aan u wada riixno dhammaanteen annagoo isla jirna taasna waxaa daliil u ah ilaa iyo hadda yani ansixintii ra'iisul wasaaraha ansixintii maxaan ku raadayay cabinetka ansixintii budgetkii muxuu ahay saddexdii bilood ugu dambeysay sanadkii hore iyo budgetka sanadkan intaba numberka baarlamaanka ee fadhiyay meesha ee ansixiyay waxaad ka dareemi kartaan dhammaan baarlamaankeena iyo annaga iyo inaan iswada wadano laakiin nasiib daro dadka Soomaaliyeed waa waran aad iyo aad ugu farxeen laakiin dad badan oo ajnabi ah wala soo daa wallahi meesha min xasan sheekh leeyahay madax adag oo dictator ah yimido dadka waxaan u galano gudoomiyaha baarlamaanka waa asagoo jabka la gashadayo prime minister meesha waxba ku maayo muxuu waa la wacaysan waa wax ka jira ma jiraan runtii wax ka jira ma jiraan yani qofka sidaa dhahayo ma garanayde opposite-keeda hadduu jeclaan lahaa midna anagoo ishaysano iska raaracno oo midka kale idaacadda uu ka beeninayo wax la jeclaada maaha annagu go'aan waxaan ku gaarnay in aanan isqabqabsanin in aanan muxuu ahay xukunka iyo maamulka aan isku qabsanin waxa aan haynahay waa dawlad cusub hadda la aduudayo oo maxaan ku raadayay meel taagan ma laha meel la isaga qabqabsada ma laha runtii marka laga hadlana wax la isku qabsada meesha ma yaalaan hadiiba anigu ay daacad iga tahay inaan nidaamka iyo xeerka iyo dastuurka iyo shuruucda dalka jirta inaan ixtiraamo iyo hogaamiyaasha qofka dadka talada ila leh inaan ixtiraamo sabab aniga la ii qabsadana ma jirayso sababaan anigu dadka u qabsadana ma jirto marka waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo ilaahay inankiisa in aanay dhacaynin isqabqabsigaas